wuxuu yidhi ina macallin ciisaay markastoon ku soo waco adigan mashquulkee malahaygu siduu yahay mid kaleeta ina yahay maa weelinaya macnahaaga ii sheeg ma masayr hinaasaa keligay madax maray maadaa i hodayo madadaala igu haba mar waxaan idhaahdaa mid kale ka guraysaa macaanooda leeda marka gabadha taleefonkaaga qaban weydo mashquulkeedu fara badan yahay fadlan lambarkaad garaacday waa mashquul waxaad soranaysaa moogtay mid kale ka guraysaa moogta ina macallin ciise waxa maragma doontaa maalintii dhaweedeed igu tiri macaanow maamo hooyaday oo miyigii ka timid baan ku mashquulsanaayo la mashaawiraaye miyaan adiga mooye mid kaleba ku haystaa inay been maldahaniya ka ahayd maqaar saar oo uu nin maal badan oo Mareykan joogo macal waayn ku soo wacay waxa ay markhaatiya yarta muunagaabee minankiina joogtay Muuse Jaamac uu dhalay oo reerka dee bariis oo karsoo khayr qabtaa ayay soo gaarsiisay baan leeyahay moogtay marka runtii aad maxbuustay maradii ka qaadeen maanta danba soo iri gabadhii maadaama wixii ii sheegtay iska soo iri hadaa rabtid miyay waayeysaa reer mushahaarka siiyo maqsinada waxaa dhow maacuunta weelka ugu maydha shilimaad ina macallin ciisaay maalintii salaasada mahad geela adigoo la fadhiya maqaaxida macmacaanka lagu gado maqlay oo warkaa helay oo mid yar afti u ahay oo aan iyadana ku maqlay inuu maaragtay siyaasiyoon siri lagu yidhi halkaasay wada joogeen dharaartaan maqnaayeen ka yar baxay magaalada ninka madaxa weyn ee degan maalmo ee nuux inaad soo macsuunto marti qaaday lay sheeg anna maalin qura weli malo wax ima aadubin waa halis nuux wuxuu joogaa maalmo ilaa halkaasaa laga keenay ina macallin ciisaay midka yare ku caankaa matalaada filimada ee boodhari la magacbaxay maxaad maalin iyo leyl markastaba u wacataa ma ogtahayse inankaa inuu laba marwaa qabo muna iyo xaliimiya mulkii ina garweynana isku maalin wada furay maanoo kaleetaad ragga moodaysaa gebi anigaa miskiinoo u macaan naftaadee raggu maaha wada ani waa miina aas iyo badidood ma siiyo good ina macallin ciisaay musawirada Facebook ugu jira mid baa furan sawirada Facebook waa la xidhaa moogta public iyo private bay kala leeyihiin marka ina macallin ciisaay musawirada Facebook kuugu jira mid baa furan doob miciyo weyn oo ku macaasha aragaa muuqaaga daawada waxaan shalay ta milicsaday qalin loo mar soo qoray qalin loo markaa wana saaxiibkayo abwaan oo aan aad halkan uga salaamayo runtii oo jooga gobolka awdal jooga jaamacadda Camuud wax ka dhigta suugan wadaagnahay waxaan shalay ta milicsaday qalin loo mar soo qoray inaan muunad la tahay mar la arag ayaa tahay dibnahaagu waa madow waa madag dhexdaaduna magaca walaalay magashaanti baa tahay hadaa tahay marwiya xaasmiya lagu furayaa wiileemo marka waa comments Facebook laftiisa markhaati uu mar ayaan sidii keli bal maxaa ka galay talow qofka moo yar dhooftaa aad feer ku miistide ama goomac sharo habla miiran joogaan mar sabaaxad laga diday bisna waxaan sidii maya muxuu khalad ku leeyahay ma tidaahdeenantii adiga mas'uul ka ah inay maalin iyo leer rag kugu mashquulaane maalkayga ii qareyna macallin ciisaay ina macallin ciisaay maalmahan wadaadadu meherkoodu badayo maasha Allah inantii la istaagta madaxaba mid ayaa la kacay oo horta nimanka wadaadada Soomaaliya arag gabadh kasta oo markaa muulad loo soo kacda waa iyagu de ma garanaysaa waa diyaar wuxuu diyaar waqti dheer ma qaadanayso ilaahay uu barakeeyo ma sha Allah ina macallin ciisaay maalmahan wadaadadu meherkoodu badayo maasha Allah inantii la istaagta madaxaba mid ayaa la kacay muxaadaraadka diinta muftiga wiilka soo dhiga mareegaha xiriirka malaha jooga Denmark muuqaaladiisa marmar sheer gareysay muxuu naasir ku yahay ma awowahaba naasir uu familaayo daanishka joogo ajiib ina macallin ciisaay ragga mu'allifiinta malmaluuqa erayada xaragaha ismaadsiyo haykal maansadiisiyo sahal midhaha oo qoro maxad lay ku saartaa ma sha Allah iyo marra waaxid waa gabay erayada macaan kale ugu muunadaysa maadaa lagu qoray maxaa adiga ka galay murtideeda dacartee laga maalay ciinka ka macaan ku woodee waxaan ka mamnuuceed uga maagtay ii sheeg ina macallin ciisaay hadmaad milicsan doontaa waxaan meel isku qoray miyaad aragtay heestan adig kuugu magac daray malaayiin hablood oo maqlay oo ka helay baa mid kastaba waxay tiri yaa maalin iga dhiga inanta milgaha gabay murtida iyo weeraha loo horeeyo miiday u gudlanaya maankay sida mayga roobkii maskuxuu u darareen ina macallin ciisaay ku maaro waaye mayna walaashii muhaajira mujaahida ku sheegay ina mahad oo ay mar iyo laba madaxa ku jiido mooyaha tibtiisa maqlay kugu garaacdo dadku ina maqlaan oo dhalintii magaaladu nagu maagsadaan waxalku kula muuqda manigadiisi wallahi inan baa ii joogtaan walaalaayo hadaan hado waxaas tii bilowday ad maqliyaysan tahay
ina macalin ciisaay marka waa gabagabadii iyo sidii aan rabo inaan gabadhii magaranaysa u guursaday waxaan rabaa inaan ka bixiyaa sheegaya ina macalin ciisaay yaa maqasha labada ee maalba noo haray adiga mutaystay kugu dhaamid dooro macaan ay ku dhaafsada aad muraaqa faraxdii laba maqal baan leenahay mid yaa ku dhaahday ma garanaysa ha mid kalena kugu dhaha meherkaaga weeyaan aad tii mabsuudide ina macalin ciisaay yaa labada maqasha martisoorka ehelkiyo ku macsuumo xididkoo isku maalin noo qala labadiiba isku maalin dee noo qala ma garanaysa dabadeed magaalaba inta maalin kaa rara labadeena mooyee miyi aan insaan hore mar horeeto soo degin oo geed magooliyo midho iyo lahayn doog meel abaara kugu fura ina macalin ciisaay yaa madal ruwaayadu ku marqaanca weeyaan aroos kugu macsuumo malxiis kaaga dhiga jiir yaa maraqa xunshada kugu siiya milixli'i mukulaashu goortay kuu muhasha heestee rahu kuu mashaxaradee maroodiga aftahanka kuu mariya geeraar lebaalku aftahan waan laga gurine waan la wareysanoo kalsan baan u imane ninku waa abwaan waa la soo geliyo yaa maqaar diin kuu dhiga musdhaxan badan midka yeyda kugu dada miyir aad u gamaadide yaa maydhax iyo qolof marya kaaga dhiga harag banka aad mushaaxdide gabadhaas iyo bal sawirkaa ka waran inta miyi la geeyo harag iyo qolof warya iyo hawl weeye kala fog markii la yiraahdo gabar Facebook isticmaalaysa in sawir noocaas la yiraahdo arooskaagu noqonaya waa cajiib fasiraad badan ma baahna